السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا وحنا كينغ سولفر واحد يقدر ونسان كينغ سولفر برو. King Solver Pro. وهي أصحابتي دقاليقة اسكو سو نقشو نكسن. filimkan waxaa la magacaabaa Lock-Up daawo iska taxadar. Aabaha dhalay Frank oo lagu magacaabo Liz ayaa wuxuu isku dayayaa in wiilkiisa maskaxdiisa u dejiyo, balse uu dharbaxaya. Wiilkiisa ayaa wiil aad iyo aad u dabeecad kulul, isla markaana isticmaala maandooriyaha waqtina la qaata saaxiibadiisa dhanka iyo kalabka. Aabihii ayaa aad ugu murugoonaya dharbaxada ugu timid wiilkiisa. Liz inta badan waxaa waqti la qaataa Nuria oo ah gabadha ugu dhow gabdhaha. Maalmaha ka mid ah Nuria ayaa waxay weydiinaysaa Liz in jacaylkoodu yahay jacayl wanaagsan iyo in kale, balse wuxuu leeyahay ani adigu waxaan isku keenay dan maahan jacaylna ma dhex yaalo. taas Nuria ayaa aad u niyajabinaysa. Frank ayaa mar walba ka jawaabaya telefoon uga imaanaya iskuulka maadaama wiilkiisa iskuulka xaadirin wax badan. waxaa telefoon looga soo dirayaa Frank hospitaalka maadaama wiilkiisa uu dhaawac soo gaaray. markuu imaado waxaa loo sheegayaa in isaga iyo saaxiibkiis ay xoogaa isfahmi waayeen, dhaawacna uu soo gaaray. waalidiinta dhala wiilka kale waxay u sheegayaan Frank in wiilkiisa uu ilaaliyo maadaama uu aad u kulul yahay. Frank oo doonaya inuu dejiyo wiilkiisa ayaa Luisa markii wax xanaaqaya wuxuu arbaaxaya aabihii. wuxuu ka xadayaa aabihii lacag si uu usoo samaysto xafladiisa dhalashada tii waliba 17aad. wuxuu waqti la soo qaadanaya saaxiibadii dhanka iyo kalabka. wuxuu ka xaroonayaa saaxiibtii oo la ciyaaraysa nin kale, balse degdeg ayuu xaflada ku imaanaya. wuxuu u imaanaya aabihii oo keliya dhiganaya xafladiisa dhalashada, balse taama danaynayo wuxuuna iska aadayaa qolkiisa jiifka. Frank ayaa gogolaha ka raadinaya xal sidii uga heli lahaa wiilkiisan edebta daran islamarkaasna dabeecadda xun. wuxuu arkayaa shirkad lagu magacaabo Simka dhaqan celin u sameysa dhalinyarada noocan ahi. wuxuu daawanayaa muuqaalo waalidiin talo sameynaya oo tala jeedan u sameynaya waalidiinta kale. ugu dambeyn Frank wuxuu go'aansanayaa in uu raadiyo shirkadan si uu ugu tago islamarkaa iyadana uu ugu soo helo xog intaa ka duwan. Frank ayaa ka qayb qaatay seminar ay sameynayeen shirkadan Simka oo ay la wadaagayeen waalidiinta. Frank ayaa aad ula dhacay soo jeedinta ay sameeyeen Simka. sidoo kale waxa uu ka helay su'aalaha iyo jawaabaha isweydaarsanayaan iyaga waalidiinta. Miguel oo ah wiilka isdagaalayeen Liz ayaa waxay u sheegayaan waalidiinta inuu waco Liz una sheego in aysan saaxiib si ahaan doonin, balse Liz ayaa aad uga caroonaya wuuna aflagaadeynaya isaga iyo waalidiintiiba. sidoo kale waxaa soo wacaya saaxiibadii, aad buu u aflagaadeynaya sidoo kale saaxiibadii, wuxuuna xasuusinayaa in habeenkii xafladii dhalashadiisa ay iyadu la ciyaaraysay nin kale, balse waxay xasuusinaysaa in isaga uu yiri aniga iyo adiga waxaynu nahay dad ay dan isu keentay ee jacayl nagama dhexeeyo. waxay sabaysaa Liz oo sarqaan ah inuu mir dabalmo. ugu dambeyn Frank ayaa wuxuu qaadanayaa go'aan ah in uu soo diray ciidamadii Simka si markaa iyada loo geeyo dhaqan celinta. waa la qaadayaa Liz waxaana la geenayaa dhaqan celinta. Liz ayaa isku dayaya inuu aflagaadeeyo principalka ama managerka halkan, balse waa la ciqaabaya. waxaana loo sheegay haddii uusan doonin in la ciqaabo in uu xushmad iyo akhlaaq yeesho halkaan oo sidaa ku joogo. waxaa laga xiriyaa timaha, waxaa loo ekaysiinayaa saaxiibadii. wuxuu qaadanayaa rootiinkii ugu horreeyay uu la qaato saaxiibadiisa. Liz ayaa isku dayaya casharka oo socda in saaxiibadan cusub uu qof ka mid ah weydiiyo waxa u socda, balse lama ogola, taana sharciga ay jebinaysaa. waxaa kaloo la yaabayaa qof walbo halkan jooga gaarka hoostiisa wuxuu ku leeyahay calaamad yar oo guduud ah. maalin walba waxay sameeyaan almindo tiis casharo kala duwan, waxay sameynayaan farsamooyin cusub. Doorka marka la gaaro waxaa la aadaa qado kadib qaar baa almiinta aadayo, qaar baa farsamada cusub sameynaya, qaar baa medical check up loo sameeyaa, qaar baa galaas u socda. laakiin ninkii Frank ah wuxuu helay chance uu ku nasto, laakiin wuxuu xasuustay wiilkiisa, wuxuu u dirayaa hadiyad, balse Liz uu arkaya hadiyadda laakiin wuu iska tuurayaa. weli kabar baa ku jira. sidoo kale halkan waxaa jira xilli ay cabashadooda iyo noloshii hore ay soo mareen ay ka sheekeeyaan. halkan Liz oo isku daya tan inuu ka faa'iidaysto ayaa wuxuu u sheegaya macallimiinta halkan in aabihii isaga iyo hooyadiiba u dhibaato badan u geystay, in aabihii uu madax adag yahay, doonaya in uu ku dhaqo tan isagoo mar walba ku fikirayo. maamulaha shirkadan ayaa u sheegaya dhammaan dhalinyarada iyo shaqaalaha inuu yimaado nin loo magacaabo Nando cusub oo kusoo biiray halkan la soo dhaweeyo, balse Nando ayaa nin aad u cabasho badan markaana qaba cudurka dhimarka, hana arki karin dadka cabsada, isaguna ma ahan qof ka cabsada, wax walba uu doono la sameynayo. kadib waxaa la isugu imaanayaa cashada. Nando wuxuu arkayaa wiil u cunaya si
tartiiba uu ku qaylinaya, madaxa ayuuna ka qabanaya, derbi ayuu u garaacaya. Dhulka markuu siixiyo kadib afka ayuu cunada ugu guraya, maxaa yeelay ma arki karo qof aayar cunada u cunaya. Wiilkii ayaa isbitaal loola cararaya, principalka ayaana aad ugu qaylinaya. Nando waxa uu sameeyeyna aad ula yaabayo, wuxuuna u sheegayaa inuu qalad sameeyey, balse waa ka madax adeegaya. Madaxa ayuu isaguna sidoo kale dhulka ama miiska ugu garaacaya ilaa uu ka aqbalo waxa uu sheegayo. Habeenkii xigay Liz ayaa wax maqlaya qaylo banaanka ah, kadib wuxuu isku dayay inuu qayladan soo ogaado isla markaana uu banaanka u baxo. Liz ayaa banaanka u soo baxaya, wuxuuna arkayaa qof lugaha iyo gacmaha ka xiran isla markaana moodo in la ciqaabayo. Wuxuu ka saarayaa afka wax ugu jiray, kadib gadaal ayuu u dhacayaa. Waxaa aad u qaylinayaa ninkii, kadib aad buu u naxayaa, wuuna soo cararayaa. Liz ayaa waxa u imaanaya mid kamid ah security. Ninkii security ayaa wuxuu u malaynayaa ninkii kale aad uga cabsanaya, halkaas ayuuna ku jirdalayaa. Liz maadaama uu dambi weyn geystay, isaga iyo saaxiibo kale oo iyagana dambiyo noocaan geystay, ayaa waxaa lagu ciqaabayaa ciqaab ka mid ah ciqaabaha ugu kulul ee lagu ciqaabo dadka halkan ku jira. Waxay garka dhulka ku haynayaan, noocana u jiifayaan ilaa 3 maalmood. waa ciqaab kulul. Ciqaab kadib waxaa la isugu imaanayaa subax qurac ah. Kadib wuxuu dareemayaa ninkii Liz ahaa garka hoostiisa calaamadii ku taalay inay tahay dhibta kasoo gaartay ciqaabtan. Ileen qof walba wuxuu lahaa calaamad garka hoostiisa ee guduud ah.